وزير الدولة أمنية معمول خاتوم السيد وشر جرائد كقبتي جودها مجالة اللاسعنود حرمت جوبل كسول أيها كل واقعي إن جودها يوجلين مجالة اللاسعنود سلام كان يهول جلو كفلنيان حافظها كوفراد كويلا مجالة اللاسعنود حرمت جوبل كسول وزير الدولة أمنية وشركة جرائد كقبتي كوفرت مجالة اللاسعنود أيها عمبارية رصاصة يهوب كعلوس مانتا لو جرعي شعب كرر لاسعنود waxaana uu ballan qaaday wasiiru dawluhu in 24 saac ee soo socotay u aari doonaan wasiiru dawlaha waxa uu amaanay sida wanaagsan ee maalinta nadaafadda uga qayb qaateen shacabka reer Laascaanood isagoo cambaareeyay horgalada oo dad yar isku geeyay una sacabtumay wasiiru dawlaha oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa hadaladiisa waxa kamid ahaa waxay ku guuleysteen inay la wareegaan magaalada Laascaanood qaybo kamid ah waxaan halkan ka cadaynayaa idinkoo u jeeda sawirka ka arkaya inaan anigu mas'uuliyiinta wasiirka dawladda wasaaradda amniga aan dhex taagnahay magaalada Laascaanood taasoo marag u ah liiskooda ku jirin laakiin xaqud dirirka oo iyana caawinaya ciidamada Khaatumo kuna soo qulqulaya magaalada Laascaanood waxaan u celinayaa mahadnaad u ballaaran waxaan leeyahay hambaliyo yar baa idinka hadhay مجتمع reer Khaatumo gaar ahaan kuwa reer Laascaanood oo sida joogtada ah geesinimada leh oo ay ciidamadayada gacanta u siiyaan yana waan uga mahadcelinayaa waxaan leeyahay aad baad u mahadsantahay waxaan fariin halkan marinay maada silaaya xukumo oo u qaadatay dadkan inay hayn karayso way xog hayn karayso taasi waa been ma hayn karaysa maantana waxaynu wada joognaa Laascaanood ilaahay idinkii qaybaha kale waa ku sii leeyihiin waxaan rajayn doonaa inaan ka saarno xaqiiqada inay qoysas fara badan iyo reero badan ay u soo hooyan doonto murugo iyo tacsi taasoo weliba daalinimana ay waxaan leeyahay dadka shacabka ah oo waqooyi oo inamadooda shilimaadka lagu qalday ama siyaasiyiintu ay qaldeen oo tacsi aad dhigi lahaydeen oo aad qoomamayn lahaydeen Laascaanood waxaad ka doonteen iyo dagaalada Khaatumo ay qoomamo idinku ahaan lahayd war maantay hadday idin bad qabaan caruurihiina wayeen taasina waa fariin aan u dirayo dadka reer waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaadba aan aad iyo aad ugu sii mahadcelinaya ciidamada Khaatumo adeer arrintaasi
igaga qaadaysaa laascaanood bartamaheeda haddaan karti u yeeshay inaan laascaanood bartamaheeda aad igaga qaado maxayn doonta hadda adigu maskaxdaada iska weydii waa been arrintaas mana shaqayn doonto ilaahay idinkii qaybaha weli ay faraha ku sii hayaan cadowgu inaannu ka saarno mooyaane kama baxay waxaa noo qorshaysan 1 2 3 dhammaanteedba inaannu cadowgan deegaamadeetan ku soo duulay aanu ka saarno waa dhacaysaa dagaalku waa nagama huraan maxaa yeede wuuna socdaaba dagaalku hadda waxaad og tahay gurigii kii ay balasaabka u magacaaban jireen iyo tii taliya qaybeedka u ahaa waxaad og tahay waxyeelada ay u geysteen ciidamada Khaatumo marka dagaalku waaba socdaa adeer waa dhacaya adeero su'aashaasi waxaan filayaa Khaatumo sool iyo sanaag iyo cayn waxay kala fadhiisanaysaa oo wufuud madax sare hogaaminaysaa fadhiisanaysaa jiidali waxay fadhiisanaysaa hareeri waxay fadhiisanaysaa xalin waa dalkii unbay ka shaqaynayaan markaa taasi waxaan u malaynayaa inaad u dheganugulaateen qoladiina saxaafaddu dacaayadaha riqiiska aan waxba ka jirin marka waa shaqo waxay meelaha u kala joogaan meel kala badan oo kala tegay mujtamaca reer Khaatumo dal iyo dibadba waxaan ugu baaqayaa in badan baa madaxda Khaatumo waxay soo celcelinaysay in dagaal cusub u geliyo waddanku baad maqlayseen oo media ka maqlayseen waa lagu jiraa dagaalkii u midooba dagaalka kan cadowga lagaga xoreynayo waddanka reer Khaatumo hadday ganacsado tahay hadday dhakhtar tahay hadday qurba joog tahay iyo hadday kaadhiga iyo geela leh tahayba gacanta waajibka idinku aana bixiyo